السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu qaadanaa cashirkii saddexaad ee percentage ama boqoliyada. Cashirkan waxaanu ku qaadan doonaa dhowr ciwaan. Ciwaanka hore waxa waaye finding a percentage of a quantity, sida loo helo boqoliyada walax ama shay percentagekiisa ama boqoliyadiisa. Sida aan helo percentage of quantity ama shay percentage ama qiimihiisa marka loo fiiriyo percentage ama boqoli ahaan. To find out a percentage boqoliyada of a quantity shay boqoliyadiisa. Convert waxa la convert u bedel the percentage horta bedel boqoliyada bedel into fraction u bedel. Tusaale percentage wuxuu ahaa boqolkiiba 20 ayuu ahaa, kadib waxa bedelay fraction ahaan ayuu bedelay by dividing by 100 adoo qaybinaya boqol. Macnaha by dividing by 100 adoo qaybinaya boqol. Macnaha boqolkiiba 20 ay wax u qaybinay boqol ay u qaybinay. kadib markaad saas samayso and remember waxaad xusuusataa remember that waxaad xusuusataa of haddii aragto kelimadaas of ama ereygaas of means inuu la mid yahay ama macnihiisu yahay multiply lagu dhuftay. Tusaale waxaad arkaysaa 20 percentage of maxaa lahaa $200 maxaa la oftaas macnaha shay $200 ahaa ayaa waxaa qiimihiisa waxaa laga dhigay boqolkiiba 20. marka shaygaas $200 ahaa haddii boqolkiiba 20 qiimihiisa hoos loo dhigo ama qiimo dhimis lagu sameeyo meeqa la gadi karaa. taas oftaas hadda macnaheedu waxa waaye multiply ama ku dhufasho waaye. haddaba aan qaadano example aan qaadano example-ka u horeeya waxa la find waxa soo heshaa 27% boqolkiiba 27 of €65 shay €65 la gaday ama $65 la gaday ayaa waxaa hoos loo dhimay ama qiimihiisa laga dhigay boqolkiiba 27. hadaba shaygaas qiimihiisa meeqa waaye. shaygaas qiimihiisa markii laga dhigay boqolkiiba 27 markii hoos qiimihiisa loo dhigay maxaan sameynaa sharci ah ku horta percentage loo siiyay 27 fraction u bedel. fraction u bedelayna waxaan leenahay 27 oo loo qaybiyay boqol. boqolka inta ka timaada percentage ayaa boqol u taagan tahay. kadib 27 loo qaybiyay boqol waxaan ku dhufanaynaa 65 qiimaha ahaa 65 isku ku dhufaynaa 27 boqol u qaybinaa kadib 65 ku dhufaynaa 27 haddaan boqol u qaybino waxa noo soo bixi 27 boqol u qaybi waxa ku soo bixi 0.27 waxaan u qaybinay boqol waxa noo soo baxay 0.27 kadib ku dhufo 65 ku dhufo oo qiimaha shayga ahaa waxay la mid tahay 0.27 u dhufto 65 waxa soo bixi waxa ku soo bixi marka calaamada horta euro soo qaado waxa ku soo bixi 17.55 ayaa ku soo baxay. marka maxay tahay qiimaheedu shay $65 la siinay ama €65 la siinay ayaa qiimihiisa waxaa laga dhigay boqolkiiba 27. haddaba shaygaas qiimihiisa meeqa waaye. shayga qiimihiisa waxaa laga dhigay 27.65 euro. example-ka labaad waxa weeye in a machine shop waxa la machine ayaa itaakis wuxuu qaatay 32 minute 32 daqiiqo qaatay to machine a certain part qayb kamid ah using a new tool anagoo isticmaalayno tool cusub ama qalab cusub. the time waqti can be reduced by 12.5%. waqti waxaa hoos loo dhigay 12.5 boqolkiiba. haddaba calculate waxaad xisaabisaa the new time taken waqtiga cusub uu qaatay shaygaasi. shay ay machine maxaa la dukaan ayuu 32 daqiiqo qayb kamid ah in lagu sameeyo ayuu qaatay. haddaba anaga rabno inaan sameyno mid cusub waqtiga
laga yareeyay 12.5% waqtiga uu qaatay midka cusub ayaan iska rabnaa. Marka hore waxaan sameynaa tiradan oo percentage-ka ayaan waxaan bedelaynaa fraction 12 soo qaado dhibic 5 12.5 ayaan u qabeynaa 100 12.5 u qaybi 100 kadib waxaa ku dhufataa inta daqiiqad uu qaatay shayga wuxuu qaatay 32 daqiiqo kadib waxay la mid tahay 12 waxaa u qaybista 12.5 100 u qaybi 12.5 waxaad u qaybisaa 100 marka isku qaybiso waxaa kuu soo bixi 0.0.125 0.125 ku soo baxaysa kadib waxaa ku dhufataa qiimaha waqtiga shayga qaatay oo 32 daqiiqo waxay la mid tahay 0.125 32 marka lagu dhufto waxaa noo soo bixi 4 daqiiqo ayaa soo bixi shaygaas wuxuu qaatay 4 daqiiqo 4 minute ayuu qaatay kaas wuxuu shayga hore inta markii la yareeyay 12.5% markii la yareeyay shaygaas wuxuu qaatay 4 daqiiqo in lagu sameeyo mashiinkaas hadda waxaan rabaa inaan soo saarno mashiinka cusub meeqa daqiiqo u qaadan karaa waxaan sameynaa waqtiga hore waxaan ka jaraynaa waqtiga hadda soo helno 4 32 waxaan ka jaraynaa 4 ka jaraynaa 32 oo laga jaray 4 waxaa ku soo bixi 28 minute ay ku soo baxayso waxaan sameynay 12.5 waqti la yareeyay percent aan 100 qaybna kadibna waqtiga oo 32 daqiiqo ah ayaan ku dhufanay waxaan soo baxay 0.225 lagu dhuftay 32 markaas waxay noqotay 4 daqiiqo shayga markii 12.5% markii la yareeyay 4 daqiiqo ay mashiinku qaatay in la sameeyo hadda waxaan rabaa midka cusub meeqa daqiiqo qaadan karaa wuxuu qaadan karaa 32 daqiiqo oo laga jaray 4 daqiiqo ee mashiinkii hore uu qaatay kadib waxaa noo soo baxay 28 daqiiqo ayuu qaadan karaa example ku xiga waxaa waaye 160 GB iPod ah 160 GB oo back iPod ah ayaa is advertised waxaa la xayisiiyay as costing qiimo dhan 190 euro excluding kadib of fight ah if haddii la faal hadduu yahay is aad haddii lagu daray 120% what will be the total cost of the iPod meequu ay noqon doonaa totalka iPod meeqaas ka rabaa marka hore waxaan sameynaa horta waxaa la 160 GB oo iPod oo dhigaha telefoonka lagu dhiso waxa lagu xayisiiyay 190 euro asagoon ku jirin faat haddii lagu daro oo uu noqdo 120% meequu noqon doonaa totalka ama qiimaha saxda ee iPod-ka haddii marka 190 ahaa marka asagoon ku jirin faatka haddii lagu daro 120 faatka meeqa noqon doona qiimaha iPod-ka horta marka hore percentigan ayaan fraction aan qoraynaa waxaan leeyahay 20 oo loo qaybiyay 100 20kan 100 qaybina kadib waxaan ku dhufanaynaa qiimaha iPod-ka meequu ah wuxuu ahaa 190 ku dhuf maxay noqon marka 20 100 u qaybi 20kan 100 ku dhufanaa kadib 190 ku dhufanaa 20 waxaad u qaybisaa 100 waxaa ku soo bixi 0.2 ayaa ku soo bixi kadib waxaa ku dhufataa 190 ku dhuf 0.2 marka 190 ku dhufato 0.2 marka ku dhufato 190 waxaa ku soo bixi 38 ayaa ku soo bixi 38 kaasi waxa waa qiimaha faatka
qiimaha faadka ayaa ah 38. hadda waxaan soo raadinaynaa totalka qiimaha totalkiisa ee iBoard-ka. waxaan sameynaa marka 190ka uu ahaa marka hore lagu xaysiiyey total waa iBoard-ka waxaa weeye qiimihiisaas ee 190ka ahaa oo lagu daray qiimaha faadka oo ah 38. 190 lagu daray 38 waxaa kuu soo bixi marka la isku daro 228 euro. 228 euro ku soo baxaysa.